ismaaciil cumar waxaan kula talinayaa oo leeyahay nin da'abaad 70 baad sare u jeeday tan iyo 99 baad talada haysaa 22 sanadood bay ku dhowdahay waxa la waxaba yaraatee ku dhagaa eed ku dhagan tahay iyo xoogga eed ku haysatid burbur iyo baaba waxaan ahayn uu soo kordhinay ma jirto ismaaciil cumar waxaan leeyahay waa laga helayaa wiil ama gabadh ku bedela si dimuqraadiya ku bedela doorasho xalaal ku bedela baan leeyahay isaga waxaan u sheegayaa oo kaliya daragii saaxiibada sidii hadeeraan saaxiibada ee madaxday ee ku dhaganaa xukunka halkay ku dambeeyeen waad garan adiguna hadaad doonayn inaad halkaa ku dambayso oo berri toolay xeedhiya fandhaalay kala dhacaan oo tidhaahdid sidan ma moodaynin wixii Umar al-Bashir qabsaday berri waa ku qabsan karaa wixii Ben Ali qabsaday berri uu ku qabsan karaa wixii Mubarak qabsaday berri uu ku qabsan karaa wixii Saalax qabsaday Ali Abdullah Saalax berri uu ku qabsan karaa marka waxaan leeyahay aqli baan ugu yeedhay waa nin daa waa nin waayeela kulli ismalihi waxba ma kala garanayo oo de ilaahay qofka bilaadanka garaadka inuu buusiyay marka isaga waxaan kula talinayaa sidaa baan kula talinayaa inuu doorasho xalaal oo xora uu sameeyo cidii ummadda ay dooratana ay lagu wareejiyo talada waa tala waayeelnimo weey waa tala walaalnimo weey waa tala garaadnimo weey isaga saabaan leeyahay inta hareere joogtay ku xajinaysa xukunka ee iyakuna moodaya inay ku xajinayaan ee isla isaga maahina cid kale ma jirtana waxaan u sheegayaa imisa madax rag ku hareereysnaayeen ay udba u noqonayeen laakiin halkay ku dambeeyeen raggi ma jiraan maanta shicibun baariyaday waxa la wixii xoolaay urursadeenna way waayeen xoogna waxba uu sameyn waayay marka iyakana waxaan leeyahay ninka odaygeed la joogtiin la taliya baan leeyahay la taliyo wanaag kula taliyo ha ka cabsoonina waa bilaadan weeyaan waxaad ka tidhaahdeen mudana madaxweyne waqti baa la joogaa haddii kadib 20 sanadood in ka badan baa talada haysay inaad wareejisid waa wax meesha yaallo doorasho xalaal la sameeyo inay kula taliyaan raggaasi tira male haddana tirisiin idhaahna tira male way badan yihiin rag iyo haweenba cid kastay leeyihiin qolown ma qolo kastay leeyihiin haddii kuwa baac mushtarka kala taliya ay jiraan kuwa haweenka kala taliya hadday jiraan kuwa maad aragtay securityga kala taliya hadday jiraan kuwa maad aragtay arrimaha dibadda iyo siyaasadda kala taliya hadday jiraan way dhinacyo badan bay kala leeyihiin marka nimankaasi inay la taliyaan ay u sheegaanoo inay isagana jar ka tuuraan ay yidhaahdeen waad fiican tahay oo waa macaanoo ummaddu waa dadaxo qofka marka la ammaano waxa uu moodaa inay sidaa un tahay ayuu moodaa isagana waxaan leeyahay isbadbaadi inta la joogtay la shaqaysana ha badbaadiyo kuwa la joogana waxaan leeyahay war inukuna isbadbaadiya isagana badbaadiya gebigeennana waxaan wada badbaadinaynaa dalkiya dadkan wada badbaadinaynaa marka waa arrin qaran weey waxaan ugu yeedhayno waa arrin la xajeclaa oo dalka iyo dadka ayaan la xajecla ka qabnaa waxaan isleenahay qof kastoo bilaadan ibadeen yar oo damiir oo la xajeclaa way ku jirtaa aana daatayba dabadood la qabay marka Ismaaciil Cumar inta la joogta ee la shaqaysa dhinac walba kala shaqaysa iyo cid kastoo reer Djibouti waxaan leenahay waxaan joognaa waqti in loo gurmado dalka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in oraahda iyo weedha waayeelnimo ee garaadka ku salaysan ee damiirka xambaarsan ee danta guud xambaarsan in la maqla baan rajaynaynaa waxna dawaan ka arki doonaayo waqtiga un baa noo sheegi doona in la maqlay iyo in la maqal laakiin annagu hawsheenii waan wadanaynaa insha Allah ta'ala waana guuleysan doonaa hadduu Ilaahay dhaahdo